Mucjiso la yaab leh oo 5 bil ka hor ka dhacday dalka Morocco. Hooyo u dhalatay dalka Mali ayaa mar kaliya dhashay 9 carruur ah. Hooyo Xaliima ayaa markii ugu horeysay maanta soo bandhigtay muuqaalada carruurta taariikhda galay. Hooyadii Soomaaliyeed oo 5 carruur ah hal mar dhashay ayaa iyana muuqaalkan ku daawan doontaane. Ugu horreyn nagu soo biir oo follow-dhe bogga Xuseen Xaaji Xasan. Muuqaalkana like saar siina share garee si ummadda Islaamka ay u gaarto. Mucjisadan cajiibka ah ayaa 5tii May ee sanadan ka dhacday dalka Morocco, balse haatan ayaa daaha laga qaaday kadib markii ay qoyska soo bandhigeen sawirro iyo muuqaallo muujinaya noloshooda. Haweeney u dhalatay dalka Mali ayaa taariikh cajiib ah ka samaysay adduunka iyada iyo seegeeda. Hooyo Xaliima Ciise ayaa samaysay rikoodh taariikhda markii ugu horeysay ah, kaasoo ah dhalmada ugu badan hal mar ay hooyo dhasho, waxayna 5tii May ee sanadkani ay dhashay 9 carruur ah. Hooyadan oo 25 jir ah ayaa jebisay rikoodhka adduunka ee ahaa dhalmada ugu badan hal mar oo horey ay u samaysay haweeney Nadia lagu magacaabo sanadii 2009, taasoo mar kaliya iyana dhashay 8 carruur ah. Hooyo Xaliima Ciise oo haatan ay u nool yihiin 9 carruur ay dhashay hal mar, iyagoona caafimaad qaba, ayaa waxay u kala qaybsan yihiin 4 wiil iyo 5 gabdhood oo intuba isku da' ah. Caalamka ayaa aad looga hadal hayaa carruurtan oo hooyo Xaliima Ciise ay muuqaalkooda soo bandhigtay maanta tan iyo markii ay dhasheen. Waa mucjiso Alle ugu talagalay, balse adduunku uu la yaabay. Soomaaliya, dhacdo tan la mid ah ayaa ka dhacday 3 Agoosto ee sanadkani, kadib markii hooyo Soomaaliyeed ay mar kaliya dhashay 5 carruur ah. Waxaa sheegay dhakhaatiirta cisbitaal Digfaar oo hooyadu ay ku umushay, balse maalmo kadib waxaa la sheegay in qaar ka mid ah carruurta ay ka geeriyoodeen hooyada Soomaaliyeed. Dhacdadaas ayaa iyana ka mid ahayd kuwa naadir ah oo adduunka ka dhaca, balse waxaa la iloobay markii hooyo Xaliima Ciise oo u dhalatay dalka Mali ay dhashay 9 carruur ah oo wada jira. Allah u barakeeyo hooyo Xaliima carruurta ay dhashay iyo guud ahaanba hooyooyinka Islaamka ah. Waa cibro qaadasho in midna ay wax dhalin midna 9 carruur ah ay mar kaliya dhasho. Taas ayaana waxay tilmaamaysaa in dhalmada uu Alle hayo. Haddaba muuqaalka like saar siina share garee si ummadda Islaamka ay ugu cibro qaataan. Ku soo biir bogga Xuseen Xaaji Xasan si macluumaad cusub aad u hesho maalin walba. Mahadsanid.